hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa ardayda maanta qalinjabinaysa kuwaas oo dadaal samir iyo dulqaad badan muujiyey si ay maanta guushan ay gaadheen ay soo gaadhaan runtii guushan aad gaadheen ma aha guul sahlan laakiin waa guul aad geedi dheer hayaan fog habeeno badan iyo daraaro badan aad u soo jeedeen waxaanan idin leenahay hambalyo si lamida waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa maamulka macallimiinta iyo dhammaan shaqaalaha jaamacadda eelo kuwaas oo kaalin mugla ka qaatay taabagelinta iyo rumaynta riyada ardayda maanta qalinjabinaysaa runtii la-aantooda ayna maanta waxaa tiin aynan waahateen ugu dambayn waxaan leeyahay iyagana waalidiintii oo u soo dhabar adeegay naftooda idiin soo huray dantooda dantiina ka horumariyey dooqooga dooqiina ka horumariyey baahidiina baahidooda ka horumariyey si ay u rumowdo riyada aad maskaxda ku haysaan oo ahayd inaad qalinjabisaan maantana ilaahay idiin rumeeyey iyagana waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyeynaya una mahad celinaya cid kasta oo guushan runtii guushiinan qalinjabintu waxa weeye waa guulwadareed la wada leeyahay cid kasta oo door ka soo qaadatay cid kasta oo kaalin guula ka soo qaadatay iyagana waxaan leeyahay hambalyo waana mahadsantihin waxaynu ognahay jaamacadda eelo waa jaamacad ku suntan tayo aqooneed oo heer caalamiya waxayna hormood ku tahay dhinacyada injineerinka computerka cilmi baarista waxayna ku tusaysaa in ay hodan ku tahay injineerinka iyo kuliyadaha kale idiin soo sheegay hadda halkan waxaa ka hadlayay ardaygii koowaad ama waa injineerka koowaad ee magaalada jooga isagoo PhD magaalada inala jooga tanna waxay markhaati ka noqonaysaa in dhismaha magaaladu isbedelayo in hannaankaynu wax u qaabaysanna isbedelayo in baahiyaha dhismo iyo kaabayaasha dhaqdhaqaale qaabkii loo dhisay ay wax badan ay ka tari doonaan jaamacadda eelo waxaa ka go-an inay bixiso waxbarasho heer caalamiya taasoo la jaan qaada dhammaan adduunyada gaar ahaan waddamadaynu jaarka nahay iyo adduunyada kaleba la jaan qaada waynu ognahay maanta ardayda jaamacadda eelo kuwan qalinjabinaya iyo kuwii hore ka baxayba waxaanu ku kalsoonnahay inay si yaroo fudud ula jaan qaadi doonaan qayrkooga kale ama dhigooga kale hadday noqoto goobaha shaqada hadday noqoto goobaha aqooneed marka la iskugu yimaado jaamacaddu waxay ka kooban tahay 8 kuliyadood oo ah heerka koowaad ee waxbarashada ama heerka digriga kuliyadahaasi oo kale ah kuliyadda injineerinka kuliyadda computer science kuliyadda managementka kuliyadda telecommunicationka ama isgaarsiinta kuliyadda geologyga kuliyadda agricultureka kuliyadda waxbarashada iyo kuliyadda nurse waxaynu ognahay hadda jaamacadda eelo kuma degdegto markay kuliyadaha furayso inta badan waxay ku degdegtaa kana go-an tayeynta kuliyadaha ay bixiso tan iyo intii la furay oo hadda 12 sano ugu yaraan ay ka soo wareegtay waa markii labaad ee aan kuliyado heer digriya ku darno markaa kuliyadda neersigu waa hadda kuliyadda annagoo eegayna baahiyaha dalka jira iyo kaalinta mugtale ay ka qaadan karto ayay jaamacaddu waxay si rasmi ugu dhawaaqday in sanadkan ay bilaabayso qaadashada dufcaddii koowaad ee ardayda kuliyadda neersiga sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay macadka cilmi baarista macadkani wuxuu wax badan ka daraa waxyaalo badan tusaale ahaan hadda waxay wadaan oo cilmi baaris ku wadaan noocii dalagyo cusub waynu ognahay adduunyadu waxay ku dhisan tahay waxyaalaha ay soo saarto noloshuna waa beeraha kama maaranto markaa hadda kuliyaddan waxay ku mashquulsan tahay oo ay hadda wadaa sidii noocyo cusub iyo tababar iyo dalagyo cusubba loogu keeni lahaa beeralayda qaranka degmada iyo gobolkaba guud ahaan sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay waxbarashada heerka labaad ama master degree waxbarashadaasi oo iska kaashanayaan jaamacad caalamiya oo dalka Uganda ku taala taasi oo runtii aan ugu talagalnay in sare loo qaado tayada aqooneed ee ardayda ka qalinjabisay jaamacadda iyo ardayda kale ka qalinjabiyay jaamacadaha kale dalka waxbarashadan heerka labaad waxay ka kooban tahay 5 qaybood oo waaweyn oo runtii aad iyo aad muhiim ah shantaas waxay kala yihiin waa master ama MBA aynu niraano Master of Public Administration Master of
governance and ethics master taas waa markii ugu horeysay dalka laga bixiyo inta uu dalku jiro sidoo kale master of project planning and management master of peace and conflict transformation master talabaad iyaduna waxa weeye waa tii ugu horeysay ee iyadana laga bixiyo waxaan doonaa inaynu ku naalno mandaqad حساسية منطقة وحياة ظروف بدن أي كثيرة سي أي نوع نبض أي نوع يستنى إلى هاي نوع من يستنى أي نوع سيحوجده وعليه نكرر دماغ يستنى أي نوع وحولا قبله شامعات وحي جوا ستين بالأولو مصدر تاسوي بحسه بس النبض يحوجين كذا أي أبدا كبح لا وحولا قاعد يوقف داتا أبدا ما أنت قال الكبير يصير هرتي ذا شوجا هرتي نلا شوجاي waxay ka kooban yihiin waa 340 arday ayaa maanta halka ku qalin jabinaya ardayda qalin jabinaysa waxay ka qalin jabinayaan 6 kulliyadood oo ah heerka digriga koowaad ama undergraduate ama niraano ama bachelor degree ama niraano ayay ka qalin jabinayaan iyo sidoo kalena 3 program oo heer diploma iyo certificate haddaba kulliyadahan heerka digriya ee maanta laga qalin jabinayo waxay kala yihiin kulliyadda managementka kulliyadda engineeringa kulliyadda geologyga kulliyadda telecommunicationka waxay iyo kulliyadda beeraha waa markii ugu horeysay ee taariikhda gobolka ee arday ku hubaysan ama baratay aqoonta macdantu ay qalin jabiyaan waxaynu ognahay waxaan ognahay wax badan la inooga sheekeynayaan in inagu maqalno soo guuxaysa taariikhda waa isku soo dhiibi jirnay laakiin maanta qoladan geology-ga bartay waxaanu ka rabnaa waxaana ku kalsoonahay inay noo cadeyn doonaan bal inay soo dahab la guuxayso inay badano la guuxayso iyo inay bad la guuxayso sidoo kale waa markii koowaad gobolka ama dalka aynu niraano kulliyadda isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiinta marka ay rabaan in loo xidho shirkadaha ama markay hawlo technical u baahan yihiin waxay dalban jireen niman khubaro niman wadamada kale ka soo jooga kuwaas oo kaga bixi jirtay lacag aad iyo aad u qaaliya marka qaarkood iyagoo lacagtii heeya ay haddana ku adkeyd inay helaan nasiib wanaag waxaan maanta ugu bishaareynayna in jaamacadda Eelo ay idin soo saartay aqoonyahanadii xirfadda u lahaa hadday noqoto isgaarsiinta hadday noqoto telefoonada iyo agabkii kaleba in ay aqoon buuxa u leeyihiin hawshii wadamada dheer iyo lacagaha badan iyo kharashka badan inaga baxaysana ayagu noo qaban doonaan macallimiinta ka hawlgala jaamacadda Eelo waxay isugu jiraan macallimiintii dalka u dhashay kuwaas oo qaar dalka joogay qaar qurbaha ka yimday macallimiin wadamada jaarka nooga yimday macallimiin Mareykanka ka yimday iyo macallimiin wadamo kale oo kala duwan ka yimday taasi waxa ku tusaysaa aqoonta jaamacadda Eelo taalaay inay ku dhisan tahay ilbaxnimo kala duwan dhaqanno kala duwan waayo-aragnimo kala duwan taasina ay ka dhigtaa ardayda jaamacadda Eelo ka qalin jabinaysa iyo ka qalin jabiyayba inay noqdaan kuwo si fudud uga dhex muuqda dhigooga marka ay ku kulmaan goobaha aqooneed iyo shaqada runtii waxaan jecelahay inaan guulaha dhan aynu soo sheegnay maaha guulo si fudud ku yimday waa guulo wadareed la wada leeyahay jaamacad ahaan bulsho ahaan iyo qaran ahaanba waxaan marka hore aad iyo aad ugu bogaadinayaa anaan u mahad celinayaa wasaaradaha sida muggadan ogala soo qayb qaatay oo ay u horeyso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo hadda nala joogo kusimaha wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada garas oo runtii shakhsi aad iyo aad loola shaqeeyey wax badan nala qabtay saacad kasta iyo xilli kasta oo nu nidhaano waanu ku baahannahay loo iman jiray runtii aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leenahay kullay taariikhda Eelo way ku xusaysaa sidoo kale waxaan iyagana u mahad celinayaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradda macdanta iyo biyaha oo aan leenahay fursad baan leedahay ogaada dalka waxa jooga in ka yar dhowr iyo 10 qof oo bartay cilmiga geology-ga sanadkii dhaweyd markaan dufcadan hadda baxaysay muddadii ay waxbarashada ku jirtay waxyaalaha ma qabsaday waxa ka mid ah in aqoonyahanada dalka joogay cilmiga geology-ga bartay ay tiro yar yihiin marka wasaaradda macdanta waxa leeyahay maanta fursad ayaan haysataa
tiro badan oo aqoon-yahanaa oo wax badan ka tari doona khayraadka dalka biyo dhigtay waynu ognahay ilaa yaraanteedii gabayadii layna xifdisiin jiray waxaa ka mid ahaa dunida oo dhan adduunka dalkeena u wanaagsan xoolaha guddigiga dahabka iska buuxa sooma waxaan rabnaa inay dahabkaasi ayaguna wax badan ka qaban doonaan waxaan iyagana u mahad celinayaa oo wax badan nala qabtay maamulka heer degmo oo hadda maayarkii duqi degmadu nala joogo runtii aad iyo aad u bogaadinayo maamulka heer gobol hay-adaha caalamiga sida hay-adda islamic relief oo howlaha beeraha nagala wada degmada baki hay-adaha wadaniga sida nation league oo hay-adahaas nation league somtel xamdi iyo shirkadahaasi waxa weeye waa shirkadaha markaan ardayda u dirno runtii aan wax lagu soo celin ardayda saan ugu dirno nooga aqbala inkastoo wax kastaaba rabitaanka alle iyo qorshaha alle ay ku suura galaan haddana waxyaalaha sanadkan noo qabsoomay waxaa ka mid ah inay jaamacaddu sii xoojiso bororosinkana usii adkayso waxbarashadii heerka labaad ee ay bixinaysay inay jaamacaddu dib u eegto dib u qiimayso waad og tahay dadaalku had iyo jeer wakti ma laha duruufna ma laha tayaduna sidoo kale markaa si tayada jaamacadda aanu kor noogu qaadno waxaa ka go-an inaan ugu yaraan dhowrkii sanado mar u eegno markaa sanadkii dhawaa waxaynu dib u eegnay aanan dib u qaabaynay nidaamka iyo waxbarashada jaamacadda si ayn tayadeedana usii xoojinno ardayda ka soo baxaysana ay noqdaan arday baroosin iyo baalal adag oo ay ku dulaan leh jaamacaddu waxay ballaadhin ku samaysay sanadkii dhawaad oo hadda imika taariikhdii sheegay ay kow ka tahay kuliyadaha heerka koowaad gaar ahaan imika wanagii idiin sheegaya kuliyadda nerska jaamacaddu waxay mashruuc beeraha la wadaa hay-adda islamic relief oo degmada bakiya jaamacaddu runtii waxaa ka go-an inay waddankeeda bulshadeeda dalkeeda iyo degmadeeda wax ku celiso sidaas darteed tamartayadu haba yaraatee waxaan doorka bugaagugla u qaybinay dugsiyada gobolka oo aan isleenahay waxay wax badan ka tari doonaan baahiha aqooneed ee ka jira gobolka iyo dugsiyadaba sidoo kale waxaa jaamacadda ka go-an inay dardargeliso ardayda dadaalaysa sanadkii hore waxaanu siinay ardaygii kaalinta koowaad galay gobolka waxbarasho bilaasha sanadkanna waxaanu siinay ardaygii kaalinta koowaad galay ee dugsiyada gobolka ku yaala inaan siino waxbarasho bilaasha taasina waxa weeye inaanu dhiiro gelinno ardaygii dadaalaya ana waxna la qabano inkastoo waxyaalo badan aanu qorshaysanay haddana intii nooga suura gashay oo qayb ka mid aan halka idinku soo xuseeyey yihiin waynu ognahay noloshu qorshe la-aan ma socoto sanadkanna waxyaalaha noo qorshaysan waxaasi waxay ahayd sanadkii hore wixii noo qorshaysnaa sanadkanna waxyaalaha waxaa noo qorshaysan waxaa ka mid a in la joogteeyo sarana loo sii qaado tayada waxbarashada in la ballaariyo laabiska jaamacadda isla bishan waxaan diraynaa laabo badan oo loo dirayo kuliyadaha geologiga iyo kuliyada engineeringa iyo computerkaba ayaan rajaynaynaa inaanu dirno sidoo kale waxaan ballaadhin ku samaynaa mashruuca beeraha gobolka waxaan ballaadhin ku samaynaa xiriirkaanu la leenahay jaamacada adduunka kuwa geeska afrika iyo kuwa wadamada kale bariga afrika bariga dhexada qaaradda eeshiyada